si rasuulku sheegay yaa dad ugu jeceshay baa la yidhi Caaisha buu yidhi anna Samsam Cabdi Jaamac baan dad ugu jecelahay marwa Samsam aad baad mahadsan tahay waxa kale oo dad siyaad diiriye oo jecelahay mar labaad hoodo marwadeyda waxaynu wada bilownay xiriirkii u horeeyay 2010kii waxa oran karaa waa qofka horumarkaaga iyo mataqaanay marka laga yimaado waalidkii soo tarbiyay waa qofka kaliya horumarkaaga ka dambeeya oran karaa hoodo inkastoo aanu waxaan ahay qofkii u horeeyay la sheekaysta waxaan noqday qofkii u dambeeyay la sheekaysta caawa awaalin badan baa meesha taagan oo saan horeba u sheegay hadalka intaan odhan lahaa waa la sii yidhi markaa wax kale odhan maayo hadiyad buuranna ugu wado waxaan leeyahay markii u horreysay maaha markii u dambeysayna maaha waxaan ku leeyahay hoodo siyaad diiriye oo jecelahay mar labaad mar labaad iyo mar saddexaad markii u dambeysayna maaha kelmaddaas odhanno jacaylkuna kuma biiro dadka qaar baa mar in heesa la isku qoro iyo weli telefoon way ag taaganto waa shaahid beynte telefoon hal saac kuma wada dhamaysan haddana 2010 waa isla sheeko soo bilownay 2018 waa isguursanay haddana kaftan iyo hadaleyska normal oo isbaanka u jacaylku maalin quraan islaynay toba intaasna 2018 intaan isguursanay hal maalin ma islaynay markaasna waxay markaan isdalanay dabadeed aniga munaasabaddan ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan siiyo hadiyad mar labaad aanan cidisiin doonin waxaan u dhiibanayaa mikrofoonka gabadha wariyaha waxaan sugnaaba waa hadiyadda qaaliga anu wada kacno dadan ma ahe waa daalacan dadan ma ahe daalacan dagaal ma ahe waa nabad dagaal ma ahe waa nabad dadka waxa uu wacan labadii isdoortay waa ku jecelahay xabiibi nolosha inta ka dhibana inaan wada joogo araba may balan qaadaysaa inaad weelkayga ahaanayso aan ku balan qaadaya balan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku soo khatimayaa nafku jecel adduunyada wacan wax nolol la wadaago ifka lagula waare marwadeeda marwa Samsam Cabdi Jaamac ayaa tusaale ugu soo qaadanayaa ma tusqaal aynaka wa taqum lil hukamaa digra baan qoraya yaa tusaale u soo qaadanaya Samsam Cabdi Jaamac baa tusaale u soo qaadanaya sidoo rasuulku sheegay yaa dad ugu jeceshay baa la yidhi Caaisha buu yidhi أنا سمسم عبد الجامع بان دad ugu jecelahay marwa Samsam aad baad mahadsan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبارو أنا هذا دادي جعش أنا دادك أديك وشعلها هذه aad baad mahadsan tahay jacaylku wuxuu leeyahay dariiqii rasuulka iyo dariiqii asxaabada ninba wuxuu ka ashkatoonayay aweenaydiisii wuxuu u tagay rasuulka kaga soo Umar bin Khattab kaga soo ashkatoo buu yiri isagoo sii socda yuu albaabka istaagay wuxuu arkay albaabka wuxuu ka maqlay Umar bin Khattab oo gabadhiisii hadalka ku celinayso uu aamuso uu iska noqday isagoo sii noqonaya ayuu Umar bin Khattab amiirul muuminiin soo baxay wariyaa maxaa ku celiyay buu yiri gabadhaydii bay ugu jaafaa jirqdo wuxuu yiri adigoo xaaladaada iga darantaan arko waan iska noqday buu yiri jaafajiriqeega buu yiri uma joojinayo xuquuq waxyaabo badan oo nugu lahayn ayay qabataa buu yiri maxaa kamid oo bidho murja'atu lil awlaad buu yiri wa qasalatu listiyab wa tabaqatu lit'am wa hada xuquuq alayhi liman lahu buu yiri waxa ciyaalka naaska inuu jisaa cuntada ii karisa dharka ii maydha waxa soo dhan xuquuq u malihi dulqaad badan baan u yeelan doonaa buu yiri taasina waxay ku tusaysaa taxamulka iyo dulqaadka dadka soo gali ay ku gaadhaan guusha ilaahay dad guul gaadhay inaga dhigo waa qaybta nolosheeda kamida waa hooyaday labaad mar waa saaxiibaday walaashay waxaan ku qiyaas garan maayo waana qofka noloshu waxay tahay bartay anigoon waxba ahayn aad iyo aad ayaad mahadsan tahay xabiibi ku soo dhaw
madashan quruxda badan leh in badanna waan sugay inaan ka qayb qaato madashan iyo madal kale qurux badanba waxaan kaloo aad iyo aad aan halkan ku guddoonsiinayaa boqoradayda ama garabkayga midig hadiyad aanay ogeyn oo aan anigu kadis uga dhigay wax ku jira kama warqabno laakiin halkaas ayay noogu furi doontaa halkan waxaa ku guddoonsiinayaa waa ubixii jacaylka waa sacabka cajiib waxbaa socda sacabka igu celiya waxa kale oo aan guddoonsiinayaa madasha caawa halkan aynu fadhino oo ah buugga wehel jacayl kaas oo aad iyo aad aniga igu weyn aanan dhammaantiin u akhri doono yaa salaam war inooma dhinna inteenna kale waxa kale oo halkan ugu soo diyaariyey fargalkii jacaylka iyo saacad qurux badan waxa kale oo aan halkan ugu soo diyaariyey waa wax kale laakiin kaas iyada ayuu barafadu yahay dhammaantiinna aad iyo aad baad u mahadsantihiin jacaylku ha guulaysto waxaan jeclaa maadaama nin walba waxa la yidhi nin walba ceesaantiisa ceelkeen waxaan jeclaa inaan aniguna ka idhaahdo halkan maansa yar walow aanan abwaan ahayn laakiin aan isku yardayey inaan u yar sameeyo marwadayda waqtii aan ku wada jirnay wada sheekaysigeennii aniga ahaan waa mahadsantiin aniga ahaan sida hadalkayga idinkaga muuqata waxaan ahay nin reer bariya sidaad tidhahdaan idinkuba reer bari marwadayduna waa gobolka awdal iyo magaalada boorama waxaan filayaa saaxiib iga horreeyey isaga iyo marwadiisu waxay yidhahdeen waxaan nahay bari anigu waxaan ahay bariga barigiisii waxaan ahay reer garowe haddaad garanaysaan runtii socdaalkayga iyo wada sheekaysigaygu wuxuu socday muddo 2 sana waqtiga intaa leeg aanu wada qaadannay ugu dambayn waxaanu selnay qofkaan dunida ugu jeclaay oo Sareeda Xuseen Dugsiye geeraarkii aan ugu talagalayna wuxuu ahaa amaan hadda intaan wada sheekaysanna sameeyay habeen waliba waa cayn in qashiya dareen badan hab waxa la igu siiyaa dabacsanaanta hadalkiyo hawraadtaada markaan tago habsamida tallaabada huwanaanta dhaqankiiyo waxaa tahay hormuud dumar habboonay haweeyay hanaqayga laabtiyo waxaad ku taalaa halbowlaha hami waxaan ku taamaa inaan hoy wada degnaayo hoobalo wada ciyaarnaa hani haweeye habboon aad ii dhashaa inkastoo dooqu hal yahay kuma hiifa haweeyaay hab kastoy noqotana hawraarsa inaan ku yidhaahdo kaa dhowra hadimada waa halaan falay caawaya adduun hawli kama dhammaatee nacabka heetiyaya hooy inaad tidhaahdaa hoobaanta warankiiyo hootada aad ku babtaa soo dhigan maa macantadayda waxaan jeclahay Sareeda Xuseen Dugsiye inaan ku yidhaahdo waan ku jeclahay inta noloshayda ka dhiman waana ku sii jeclaan doonaa waan ku jeclahay thank you aad baa mahadsantiin waxaan filayaa in aan marar badan halkani aan munaasabado badan kaga soo qayb galay laakiinse middan caawa iyo goobtan aan munaasabada ujeedada aan u nimidna la mid ah in aanan weligay iman qiso dheer iyo jacayl iyo wanaag iyo muxubbo wax badan uga sheekay baan islahaa laakiinse buuq iyo waqtiga oo inagu yar baa meesha ka socda ayaan filayaa haddii aynu isdhegaysano jacayl badan baynu ka sheekaysan lahayn laakiinse waxaan idin leeyahay muxubbada kalgacaylka ku diirsada wadajirku waara dhammaantiinba aniga iyo marwadayda oo aan afkeyga ku hadlayo ayaan Axmed Caraale oo ah marwo aan aad iyo aad u jecelahay masaafo dheer aan u maray anigu guurkeyga haddana dal iyo dibad aanu iskaga nimidnay oo aan ilaa iyo qurbo iskaga soo talowday guurkeygina aan ilaa iyo burco u socday buu ahaa maantana iyaduna reer Boorama idinla ah barasho wanaagsan baan dhammaantiinba idin leeyahay waan idin soo wada dhaweynaynaa jacaylkaasi baan dhammaantiinna idinkula wada diirsanayaa aad baad mahadsantihiin sida wanaagsan ee noo soo dhaweysay السلام عليكم دمان aad baan idin salaamay reer Boorama
aad baan u salaamaya dhammaan gobolka awdal iyo dhamaaneyaasha quruxda badan leh ka soo qayb galay madashan kolley fadxiya waxay tiri waa lama lamaane oo bariga galbeed ah ها لما لما أنا الله هاي وحنا كنا ببرجة سوماليلاند يا قلبات سوماليلاند أنا وحنا كنا ببرجة سوماليلاند قارهان قبل كبرعو يا قبل كسناج مرة دينه قبل كأوضل يا قبل كسرين مرة وحنا ليه لما قبل بان مثلنا ما دام الله هاي لما ناش غرقة وحنا كلو عاديات هذين يا أبوان كبوجا فرنتي وانين دليرا وكسوك عينا يا وصودي سيا لما ناش غرني كتوجا wuxuu yidadiilo iyo dhiirgelin u sameynaya lamaanyaal badan oo birito hore iyaguna madal nooca oo kala ka soo qayb gali doona waxaan aad u salaamayaa oo leeyahay dhammaan marti sharafta quruxda badan leh soo buuxisay madashan aad oo mahadsantihiin sida quruxda badan leh lamaanaysan tihiin alla intaan hayna ha u keeno inta haysana Allah subhanahu wa ta'ala ha ku sugo waayo guurku waa wax wanaagsan leeyahay dhammaan mahadsantihiin madasha quruxda badan leh ee bilana waxaan leeyahay sidaas caawa ay nagu bilaabantay خير جدا بروقان نقول ما تو وحنا كلوا هذا السلام يا ونصور وين يا وانودي بالتلفون مرودي واي مرودي دوا قف كلياته أن كهلو قرب أن كهلو ديرجلين أن كهلو حالها وقف تقول كأوض كانت برتي قيمي سيشرف فيسا مركا آدم ما صنت هاي وحلا يمرو سودو حديد كواد بوق أنا عاو قادنا يا مرودي أنا سين يا بوق كواد حديد عاو أنا سمينا يو مركا وحلا يمرو سودو horta habeen wanaagsan dhamaantiin anoo saxaabo horta aad baan idin salaamayaa kulay waxaan odhan lahaa xaajiga soo dhameeyay waxaan idin leeyahay caways wanaagsan macal